بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعانا ونكسن دمانتين بمبير والبوء الدنيا كجوكتان برامجكم حنكسو قاددون هدي الله كدقو wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobada ku daawad doonta waxa kamid dawladda wadanka Mareykanka oo daaha ka qaaday tir maraakiib ah oo dawladda wadanka Iran ay leedahay oo dib looga celiyay wadanka Iran hadaba maxay yihiin barnaamijka ku soo qaadan doona deela ka dhigo Jarmalka iyo wadanka Mareykanka oo geed gaaban isku fuulay Jarmalka wuxuu markaan si dhab ah ugu biirayo dhinaca dawladda wadanka Iran barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonaa hogaamiyaha Kooriyada Waqooyi oo war cajiib ka soo yeeray isaguna barnaamijka ku soo qaadan doonaa dagaalo culus oo faraha la isugu ayaa ka soconaya Lebanon iyo dhulka Falastiin ee xoog lagu haysto maxaa soo kordhay barnaamijka ku soo qaadan doona hadii la ka dhigo guud ahaan wada hadalladii Iran iyo Mareykanka daaqada ayay ka baxeen ciidanka ilaalada kacaanka wadanka Iran oo huburursiga ugu dambeeyay ku jira Donald Trump oo xaaladdu ku liidato waa sidee xaalka wadamadii Carabeed iyaguna barnaamijka ayaan ku soo qaadan doona hadii la ka dhigo Ruushka iyo Shiinuhu iyaduna barnaamijka ay qayb kaga jiraan aan ku hormarnay waliba dhinaca kale dawladda wadanka Ruushka ayaa u shiirahan yiraahdeen ayaa laftarkeeda fariin culus goordhow jeedisay maxay fariintaasi barnaamijka ku soo qaadan doona deela ka dhigo aad dudumaasantine soo dhawaada markii ugu horeyso waa hagaag haylaawin haddii aad tahay markii kugu horeysay ee aadna soo boqoto kanaalka subscribe iyo share gareeyo la wadaag saaxiibada iyadii hore hadad ka mid tahayna wiliga gobnimo ku noolo maalin wanaagsan ama habeen wanaagsan goorta ay doonta ku ahaatee waa 27 bisha afraad ee sanadka 2026 bishana waa abriil waa hagaag aan ku hornay markii ugu horeysay dawladda wadanka Shiinaha ayaa si caara leh uga jawaabtay falalka gurracan ee dawladda wadanka Mareykanka ay markaas ka wado xeebaha wadanka Iran meelaha u dhow dawladda wadanka Shiinaha ayaa tiri waxaan si weyn u cambaareynaa dhibaatada dawladda wadanka Mareykanka ay ku hayso dawladda wadanka Iran gaar ahaan markaas ay maraakiibta galaysa iyo kuwa ka soo baxay wadanka Iran inkastoo dawladda wadanka Mareykanka 1 kilomitir wax ka badan ay u jiraan xeebaha wadanka Iran haddana maadaama ay tahay Mareykanku dawlad weyn oo tiknoolajiyad la way garan kartaa maraakiibta Iran ku sii socda iyo sidoo kale kuwa ka soo baxaya laakiin dawladda wadanka Shiinaha waa markii ugu horeysay oo fariin iyo handad inta leeg ay u jeediso dawladda wadanka Mareykanka war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dawladda wadanka Shiinaha ayaa lagu yiri waan aragnaa si weyn waan u cambaareynaa tallaabooyinka gurracan ee Washington ay qaadayso ee ka dhanka wadan madax bannaan oo markaas ay ka tirsan isla markaana ay ilaalinayaan xeerarka jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa laakiin Mareykanku mid waa uusan ilaawin dawladda wadanka Shiinaha inay ilaashato maslaxadeeda diyaar ayay u tahay mana kala labayn doono waxaase doonaynaa bay tiri lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda wadanka Shiinaha inta aanay talafara ka bixin dawladda wadanka Mareykanka cadka iyo mugdiga inay kala garato ama cadaanka iyo mugdiga inay kala garato muddo badan ayaan u dul qaadanaynay wax sheegna waanu daalnay laakiin way hadda ka dambeeya waxaan ku qasbanahay inaan ilaashano danahayaga gaarka arintaas waxa laga wadaa inaan Mareykanka loo deyn doonin ama laga ogolaan doonin maraakiib ay leedahay dawladda wadanka Shiinaha oo ku sii socda wadanka Iran in Mareykanku soo celin karo ama markab dawladda wadanka Shiinaha u raran oo Iran ka soo bax inaan Mareykanka celin doonin waxaan moodaa dawladda wadanka Shiinaha in muddo ah in ay markaas oo ciil cunaysay dawladda wadanka Mareykanka madaxweyne Donald Trump ayaa hadda isku arkaya go'doominta uu saaray dawladda wadanka Iran in uu xogaa u libin siyaasadeed ku gaarayo laakiin dawladda wadanka Iran iyo guud ahaan shacabka reer Iran oo lagu yaqaan sawir mucjisa iyagu ish ayay ka daawanaya inkastoo telefoon badan iyo wada hadallo badan oo madaxda gobolka ee Iran lagu qasbayo ugu yaraanti bal in ay samar muujiso haddana dhinaca kale dawladda wadanka Iran degdegsiino kuma jirto waxay ballan qaaday haddii xaaladda ay sidan ku sii socoto gacmaha inaan laaban doonin ilaalada kacaanka wadanka Iran wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran mudane Abbas Araghchi ayaa isaguna sheegay inta ay Lebanon xabadda ka socoto oo dagaalkan halkaas ka sii socdo inaanay jiri doonin wax heshiis ah ama xabad joojin ah oo Mareykanka iyo Iran dhex maraya waxaana ishaafalateynaa buu yiri saaxiibada iyo wadamada gobolka ee markaa inaga ayaa ah buuri dad qabsamaya maxaa yeelay xukuumadda wadanka Mareykanka iyo Donald Trump waxa uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa غير mas'uuliyiin sidaas daraadeed saaxiibada caalamka nala soo xiriiraya ayaynu fursad si ugu dambeyntii hadhow aan cudurdaar u helin ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda dawladda wadanka Iran xukuumadda fashistaha ah ee Mareykanka dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda wadanka Jarmalka ayaa isaguna si adag ula hadlay wadanka Mareykanka waxaana wasiirka arrimaha dibadda dawladda wadanka Jarmalka uu sheegay falalka gurracan ee Washington ay ka wado dhinaca iyo gobolka bariga dhexe arintaas halis inay ku tahay guud ahaan dhaqaalaha caalamka cunaqabateynta la saaray wadanka Iran waxay ka dhigan tahay buu yiri in dhaqaalaha wadanka
jarmalka la weerarayo maxaa yeelay haddii iiraan ay gacanka hormus albaabada u laabto ayuu yiri dowladda wadanka mareykankana iyana markaa xisaar kale ama go'doomin kale dowladda wadanka iiraan ay saarto waxaas wuxuu yiri isu muuqasho ayaa la yaraa dhibaato badan ayana caalamka ka soo gaari doonta jarmalka waxa uu sheegayaa in dowladda wadanka mareykanka wax badan ka bedesho hab dhaqankeeda haddii dagaalkii dib looga laabto waxa uu sheegay xaaladda dunidu inay ka sii diri doonto waxaad moodaa wadamada jarmalka faransiiska iyo ingiriiska iyo dowladda wadanka mareykanka si weyn inay u kala fogaadeen ka gadal markii Washington ay ku guuldareysatay in markaas ay ku qanciso xulafadeeda in dagaalka ay ku soo biiraan waxaad moodaa mareykanka iyo NATO iyo ururka midowga Yurub waxaad si weyn inay u kala fogaanayaan bal qaarkood waxba isku diyaarinaysa dowladda wadanka mareykanka xitaa ururada ay ku wada jiraan inay ka saarto dhinaca kalena aan eegnay hogaamiyaha Kooriyada Waqooyi wiilka aan kaftimin laandheer banaandiga iga dheh Kim Jong Un ayaa isaguna sheeko cajiib ah warinaya wasiirka difaaca ee dowladda wadanka Shiinaha ayaa gaaray caasimadda Kooriyada Waqooyi ee Pyongyang waxaana wakaalada wararka wadanka Kooriyada Waqooyi KCNA la yiraahdo ka soo muuqday madaxweyne Kim Jong Un oo si wanaagsan u soo dhaweynaya wasiirka gaashaandhigga ee dowladda wadanka Ruushka isla markaana si wanaagsan uga faraxsan Kim ayaa laakiin yiri dowladda wadanka Shiinaha iyo dowladda wadanka Ruushka waxaanu nahay buuris saaxiib lama ilaawana xitaa iska daabuu yiri hadda hadii dagaalka wadanka Ukraine joogsado xiriirkeena iyo iskaashigeena cirka ayuu si mar doonaayo yiri marna mar rajeenaya ayuu yiri inuu hoos u dhac ku yimaado xiriirka labada dal maxaa yeelay dowladda wadanka Ruushka waxa uu yiri waa saaxiib lama ilaawaan ah weeye ayuu yiri Kim Jong Un isagu laftirkiisa hub urursiga gaarul caadi ku jira sidoo kale tan bali u dambeeyay sare u qaaday soosaarida barnaamijyada hubka nuclear-ka iyo gantalada xambaara ayaa si weyn u soo dhaweynaya aragtida dowladda wadanka Ruushka wasiirka arrimaha difaaca dowladda wadanka Ruushka inkastoo ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababaha gaarka u tagay haddana waxa jira ciidamo badan oo ilaa 10,000 askari ka badan oo dowladda wadanka Kooriyada Waqooyi u dirtay wadanka Ruushka si uu la dagaalamaan caloosha u shaqeysyaal carab ee markaas ee reer galbeed iyo kuwa wadanka Ukraine oo weerar ku qaaday gobolka la yiraahdo Kursk ee ku yaala gudaha wadanka Ruushka weerarkaas oo dhacay 2024 ilaa iyo haddana ciidamadaas qaarna gaajo ayaa lagu diray qaarna hub ayaa u dhinteen qaar kalena dowladda wadanka Ruushka ayaa gacanta ku dhigtay 10,000 askari ay ahaayeen sida la leeyahay midna kama badbaadin sida la leeyahay maxaa yeelay go'doomin rasmi ayaa la saaray marka ay taxal marka Kooriyada Waqooyi hogaamiyaheedu wuxuu leeyahay waxaan diyaar u nahay buu leeyahay codsi kasta oo ka yimaada dowladda wadanka Ruushka inaan fulino xulafadayada istiraatiijiga ah meel cidla uguma tagi doona ayuu yiri kaalmada iyo waxaan istiraynana ma aha ayuu yiri kuwa aan kaga baqayno dowladda fajistaha ah ee Mareykanka iyo xulafadeeda kuwaas oo dunidu iyaga mooyee cid kale ba aan ogoleen buu yiri cid kale markaa inay gargaaraan hogaamiyaha Kooriyada Waqooyi 35 sano jirka wadankaasi maamulaya dhaxalkana u helay xukunka ma aha nin ka gabado Mareykanka iyo xulafada reer galbeedka waa nin saacadii la soo dhaafaba in ka shamar ay rajal shartiisu ka magan galaan Washington iyo sidoo kale xulafadeeda hadii aad nuclear haysato dunidu si wacan ayaad u hordi kartaa ayuu yiri madaxweyne Kim Jong Un oo dhowr bilood ka hor ka hadlayay tayeynta hubka nuclear-ka iyo kubcinta iyo tiradooda in sare loo qaado intuu madax ka dhonkaday bam nuclear ayuu yiri hadii aan adiga ku waayo wala hordi ima taalo marka waxa uu durxulaya sida la leeyahay madaxweynaha wadanka Mareykanka iyo sida dunidu guud aan maanta hadii aad hub nuclear haysan aan cidina dabada kaga deedaneen waa isla culeys inteeda le marka dhinaca kale dowladda wadanka Mareykanka aynu eegnay 38 markab ayaan dib uga celinay ayay yiraahdeen markaas ay taliska dhaha ciidamada dowladda wadanka Mareykanka maraakiibtaas waxay ka yimaadeen wadanka Iran dib ayaan u celinay dekadahoodii ayaan ku celinay waana 38 markab weeye ayaa lagu yiri war ka soo baxay waaxda taliska dhaha ee dowladda wadanka Mareykanka laakiin ilaa iyo hadda xukuumadda ama guud ahaan wadanka Iran arintaas ma xaqiijin inkastoo qaar ka mid ah muxalliliinta iyo dadka xogagaalka ah ay tilmaamayaan go'doominta dowladda wadanka Mareykanka waa sheegaysa ee dhinaca wadanka Iran afka baarkiisa inaanay dhaafsiisanayn maxaa yeelay Iran shidaalkeeda si joogto ah ayuu ugu gudbaya gacanka Hormuz sidoo kale tan uu u gaaraya meel walba oo la rabo hormar dowladda wadanka Mareykanka maraakiib la xiriirinayo dowladda wadanka Iran ay gacanta ku dhigtayna ciidanka ilaalada kacaanka iyagoo nafaataha ma akhrin oo tilaabadii ay dowladda wadanka Mareykanka qaadaanba laba jibaarkeeda mid ka culus ayay qaadeen sidaas daraadid waxa la leeyahay Mareykanku go'doomintan afka oo kale ayuu ka sheeganaya sida qaar ka mid ah sawirro lagu qaaday xagacmeedyada ka muuqanaysana inta badan maraakiibta dowladda wadanka ku sii socota iyo kuwa ka soo socda inta bas caadi ayay u gudbayaan marka waxaan Mareykanku uu sheeganayo ilaa iyo hadda qaar ka mid ah muxalliliintu iyo dadka siyaasadda ka faalooda badankood shaki culus ayay ka muujinayaan laakiin waan isla arki doonaa hadii la ka dhigo wixii ka soo baxay laakiin dowladda wadanka Mareykanka waxaad moodaa dhan walba marka laga eego xaaladeedu inay tahay mid aad u liidata
haddii aynu eegno Libnaan xogaga gobonimo doonka ah ee reer Libnaan ayaa weerar culus ku qaaday kooxda burcadda ah ee duulaanka ku ah wadanka Libnaan dhulka Falastiin ay hore u haysatay waxaana xogaga gobonimo doonka ah ee reer Libnaan ay sheegeen in diyaarado drones ay ku weerareen ciidamada maleeshiyada gumeystaha oo ku sugnaa meel u dhow markaas ee magaalooyin ku yaala koonfurta wadanka Libnaan waxay weerarayeen xogaga reer Libnaan in diyaaradahaasi droneska dhibaato culus ay geysteen waxa kale marka la weerarayay iyaduna dagaal gacan ka hadal ah oo waliba gacanta la isula tagay inuu dhacay hogaamiyaha ugu sareeyo xogaga gobonimo doonka ah ee reer Libnaan Sheekh Naciim Qaasim ayaa wacd ku maray Israa'iil weligeed inay isdaali doonto laakiin ha ku rayoonina ayuu yiri inaad jibisaan xogaga xaqu-dirarka ah ee naftooda difaacaya weliga iyagu cadownimo jibin haddana nama jibay doontaan dagaal waa dhici kara dad waa dhiman doonaan adinkuna ma nasan doontaan ayuu yiri hogaamiyaha ugu sareeyo xogaga gobonimo doonka ee reer Libnaan ee Hizbullah la yiraahdo dhinaca kalena duqeymo culus oo dhinaca gantaalada ah ayay maanta roobta kaga dhigeen dhulka gumeystuhu xoog ku haysto jaliisha sare maanta lagama seexan dhawaqa diryanka iyo sidoo kale sayriga ayaana cirkii dhulka isqabsaday Israa'iiliyiin badan oo markii horeba wadnaha farta ku hayay ayuu shuban ku daatay waxaana la weerarayay in xaaladda ay aad ugu sii lidato inkastoo markii horeba gobolada la isku rado jaliisha sare jaliisha hoose iyo jaliisha dhexe waa horeba laga qaxay haddana xogaga gobonimo doonka ah ee reer Libnaan weeraradii maanta ay qaadeen waxay ahaayeen kuwo si wanaagsan cashar ugu dhigay maleeshiyada burcadda ah ee duulaanka ku ah dhulka muslimiinta gaar ahaan wadanka Libnaan ra'iisul wasaaraha maleeshiyada ayaa isaguna waxa uu telefoonka kula hadlay wasiirkiisa gaashaandhigga iyo sidoo kale taliyaha ciidamada waxaana uu sheegay in laga jawaabo weerarkii ay soo qaadeen xogaga gobonimo doonka ah ee reer Libnaan laakiin maxaa weerarka la qaadayaa biyaha xabad joojinta buriyay iyaga ayaa burburiyay 48 saac la soo dhaafay duqimaha ayay qaadeen marka Israa'iil iyadu waxba aaminsan tahay dadka dunida joogin iyadu ugu sareyso laakiin waxaase waa beentood oo dunidu waxa yiri Allah u naarisa qamaan burxan wala in ragow tala aduun taadoon ma aha waxay waaye badan qooq iyo kibir ku sameysaba gobolka bariga dhexe madax badan oo caroosh u shaqeystayaal ah oo carbeed ay duleysataaba moogan rag aan ka waabanaynin gumeysaha ayaa soo baxay gacantiina kor ha noqoto dhinaca kalena xogaga gobonimo doonka iyaguna reer Falastiin ayaa iyaguna sheeko cajiiba soo saaray waxa Israa'iil xabad joojinta ku xadgudubtay 2400 oo jeer waxaana ay dishay 9,972 qof waxaana ay dhaawacday markaas 2,245 qof tan inta xabad joojinta la gaaray oo hadda ku dhawaad ilaa 9 bilood muddo ku dhow laga joogo waxaana ay xogaga reer Falastiin iyaguna wacd ku mareen tan inaan loo sii dulqaadan doonin hamoodin sabarkeen inuu yahay inaad naga gacan sareysaan maalinkan gacanta qaadno ayaad oohin ama ilmo laba gabaalay doontaan ayay yiraahdeen haddii aydan si degdeg ah u joojino dulmiga shacabka magaalada Gaza ku haysaan inkastoo reer Gaza wali ay dhibtoonayaan oo raashinka uu ku gaarayo aad u yar yahay oo dunidana isagaba aamus haddana dhinaca kale doomo badan oo dhinacay wadanka Spain ka soo baxay ayaa jira kuwaas oo markaas sheegaya in kasr al-xisaar ama ay doonayaan in ay jabiyaan go'doominta dulmiga xambaarsan ee maleeshiyada burcadda ay ku hayaan magaalada Gaza iyo guud ahaan dhulka reer Falastiin marka aad mahadsantiin saaxiibada iyo wararkani wuxuu ku soo korwan idin la wadaagi doonaaye dib intaan u kulmi doono mar kale haddii alla ka dhigo inta ka horeysaase nabadgelyo